بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله إلهي بaa mahad iskale subxaanahu wa tacaala masiibadii meeshan ka dhacday maanta oo baabuurka qaraxa oo meeshan maaragtay ay dadka cadowga ah ay soo dhigeen alxamdulillah ilaahay baa naga badbaadiyey dhagarta dadka islaamka loo maleegaya qayb ka mid ah weeyaan xilliyada qaraxa uu dhacay xilli ku dhow ayaan salaada ku tukanay masaajidkan dariska la alxamdulillah ilaahay baa mahad iskale dhimasho iyo dhaawacba way jiraan dadka islaamka ilaahay waa ka badbaadiyey dadka cadowga ah siday dadka ula rabaan ilaahay waxa way uma suurta gelinin laakiin waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed cadowgaasi waxba noo reebi maayo dadka islaamka ah islaamku wuxuu la yimid nolol iyo dadku inay nabadgeliyada iyo wanaagga ay ka shaqeeyaan hadday noqoto in la isdilo la isqarxiyo la isdhibaateeyo dhaqankeena islaamka khilaafsan tahay marka wax diinta islaamka khilaafsana meesha ka dhacay dadkii dhaawacmay meeshan ku dhaawacmay Allah u boogadhayo intii dhimatayna Allah u naxariisto jamaacada masaajidku alxamdulillah waxba ma gaarin waa ka nabad qabeen inkastoo dadka dhaawacmay laftooda ama jidka marayay dad salaada meesha ku tukaday bay ahaayeen xilli salaada laga baxay bay ahayd oo ku soo aaday ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ka badbaadiyay xilligii la kala baxay bay ahayd oo salaada laga dareeray marka alxamdulillah ilaahay waa masaajidka waxa weeye dhaawac baa gaaray oo ilaa 3 albaab waa isku burbureen korna dhaawacyo badan baa gaaray masaajid duqaho waa yeelaho muddo badan soo shaqeynay weeyaan marka burbur waa gaaray laakiin maqaayada iyo masaajidka inta u dhaxaysa ayuu qaraxu yaalay alxamdulillah ilaahay baa dadka ka badbaadiyay waana dadku waa nabad qabaan intooda badan siday iyagu wax u rabeen ilaahay wax uga yeelin dadka والله dadkaas anu baabuur qaraxa baa meesha yaalay baabuur qaraxa meesha yaalay wuxuu ahaa ilaahayna waa ka badbaadiyay dadka anigana dariskayna ku dhacay maqaayad inta la maqaayada oo agteen dariskayna ku dhacay anigana boodkan iyo gurigan ayaa igu burburiyay marka dad badan adiga dariskaygana aad gurigu ugu dumay marka waa dhaawac weenan waan ka gaaray hadda isbitaal ku jira marka adiga isbitaal loo qaadi hooyadiisana banaanka say jiiftaa iyadoo haday tabcaan ahayd meesha saas dhibkaasaan u gaaray qaraxaas noo geystay dhibaatadaasaan adna la kulunay maanta bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Umar Macalin Maxamuud Umar Qanciye waxaan kamid ahaa dadkii markuu qaraxa dhacayay ka ag dhawaa jugta qaraxa horta aad saameyn u lahayd sidoo kale qaraxa wuxuu ka dhacay halkan baabuurka kale meesha marayo marka qaraxa qabsaday kadib intaan dhan waxa ka kacay uuriyo qarax hulac wixii dhan isla hulacay dhigaha aad noo markaan damay wax waa maqli weynay laakiin alxamdulillah sidii loo filay aniga halkaas aan taagnaa marka qarax u dhacay marka jugta qaraxa iyo saameynta uu sameeyay farqooyina u dhaxeeyo alxamdulillah ilaaha mahad iskale oo ka badbaadiyay ummadda Soomaaliyeed sida la sheegay 3 ku dhimatay halka markaan sidoo kale 5 qofood ay ku dhaawacantay alxamdulillah ani waxay indhay qabteen dhimasho 3 qofood sidoo kale mootooyin gubanaya bajaaj iyo sidoo kale feekoonno gubanaya arkay jawiga wallahi hal mar isbedelay jawiga markaa wuxuu ahaa mid aad u cakiran sababtoo wadada kaliya marka jaam noqotay wadadaas ay xirantay oo gobolka si toos ah wadada u maray marka meeshii idoo jaam ay tahay hadale oo ciriir ay tahay oo ishaag wixii oo dhan yani jiq isku yihiin markaas uu qarax dhacay laakiin alxamdulillah saameynta aad u yartahay qarax ka hor meesha waa meel lagu cuntay dadkan sidoo waxa joogeeda dad inta la egaa joogin wallahi waa la wada baashaalayay hadda qof filinaysa ma lahan qaraxa soo maahan jawiga waa shidna dadka dhan waa u fadhiday qaraxa maxaa qarxay gaariya qarxay wallahi horto ma xaqiijin karo waxa sababtoo wixii holici wixii hal mar la kulmay laakiin sida saxda inuu gaari qarxa rajeynaya